iyadoo looga reebay waxyaabaha qaar si ay ugu habboonaato jilidda. haddana kadib markii la soo baadhay ee la xaqiijiyey qisadan dhabta ah, waxaa loo soo bandhigay sidii ay u dhacday. soo dhawow cali, miyaad gaajaysan tahay? cuntadu way bislaanaysaa. weli dabkay saaran tahay. maxaa dhacay cali? duleeyahay maxay cuntada aad ugu kulushahay? dabkay saaran tahay cali, way bislaanaysaa. haddee bislaanayso maxaad dabka uga qaadi weyda? maxaad ugu dejin weyda? ha qabowde. cuntadu weli way bislaanaysaa cali. maxaad u qaboojin weyda? maxaad u qaboojin weyda? maxaad u qaboojin weyda? sabab 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 maalin kasta xaaskayga waan garaaci jiray. waxaa jidhkeeda weli ka muuqda nabaradii aan ku dhuftay. runtii waan ka xishoodaa inaan sheego daciifnimadeydii. inaan xaaskayga garaaco waxay ii ahayd caado. runtii waxaan ku sameeyey xaaskayga iyo carruurtaydu wax laga xishoodu ahaa. laakiin ma awoodin inaan isqabto. isma aanan xukumi karin. si aanan xaaskayga wax u yeelin, marmarka qaar waxaan aadi jiray magaalo kale. mararka qaar bilo ama sannado ayaan ku maqnaan jiray magaalo kale, gaar ahaan istanbul. hayarago shaqadu waa sidee? fiican kaabe. heer sare wada haye. waxaan ahaa siwidheye lacag badan qaata. sida badan waxaan ahaa madaxa shaqada. laakiin lacagta aan shaqaystaa waxaan ku cabbi jiray khamri. waxaan u cabbi jiray joogto. kaabe bannaanka cabitaan u doonana man raacaysaa? maya maantayda ma sabab raacayo. waayo? shaqaa ii taala. waa taqaanaa meesha aan tegayno, halkii aan aadi jirnay. waa hagaag. nabadgelyo.
arigii wuxuu ku soo lumay buuraha sidee baan iskaga bixinaa lacagtu ma geedaha nooga baxdaa doqon yahow ilaahay ha ku cinqaabe ka bax guriga oo dib ha ugu soo noqon Maraş'tan bir haber geldi. Maraş'tan bir haber geldi dediler ki keşke Merik ölmeseydi. cali kaalay Keşke halkanaan joognaay waree adeegay laba cabitaan inoo keen هيا بشالة waad mahadsan tahay oy Merik ben kurbanım sana Merik. waxaan rabaa cabitaan kale Oy Merik ben kurbanım sana Merik ben. akhyaarta waan xidhaynaa yaa xisaabta keen waxaa lagu welay konton dilaar maya lacag intaa dhan maanaaba adugu wata inta awoodo bixi inta kaa dhiman anaa ku daray waa ku kaas isii middii igu dambaysay wax badan baad cabtisa haddaan wax badan caba ma mid kalan ku weydiisan lahaa yaa allah waxaan rabaa inuu i caawiyo kuma wax badan baan la hadlaa kumaad hadashaa allah yaa kale xaasha tusaale ahaan bal ubaxa eeg ubaxa ubaxa ubaxu wuxuu ka baxaa caro bus ah markaad digo bacrin uga dhigto way qurux badnaadaan haddaba xagguu udgoonka ka keenaa wuxuu ka keenaa digada maya macarafta udgoon allah wax wasaqa buu wax udgoon oo quruxsan ka sameeyaa wasakh kan waa guriga mahadsanid adigu ilaah mala hadashaa waanu cabtaa marmar maya ilaah waa inaad ula hadasho sidii saaxiib ama sidii adigoo ilmihiisa ah waa sida aan mar walba sameeyo ma i fahantay allah wuu jecel yahay carruurta laakiin ma aadi karo guriga markaan guriga tago waxaan garaacaa si xun u garaacaa xaaskayga waan cabi markaasuu waxaasuu dhici xataa magacayga waan ilowbaa waa inaad sacuudi arabiya waddanka khamradu waa mamnuuc haddaad tagto waad joojin qamradaan joojina haa waad istoosin lahayd adigu istoose maxaad ka shaqaysaa dhisma waa ninka sibidhaynta ugu fiican waad istaanbul haysaa sacuudigu waxay u baahan yihiin shaqaale dhismaha oo badan lacagtu way badan tahay io aamin waxaan xun aduu keligaa iskama joojin kartid intaas waa igawaano allah isagaa ii gargaari insha allah allah wuxuu caawiyaa kuwa iyagu naftooda caawiya waa hagaag akhyaarta caawa intaa haynoo ahaato aynu hooyanno
waxaan shaqo u aaday sacuudi arabiya laakiin ujeeddada dhabta ah ee aanu aaday sacuudi ma ahayn inaan lacag ka soo shaqaysto ujeeddada dhabta ah aanu aaday waxay ahayd inaan joojiyo khamriga waxaa la ii sheegay inaan sacuudiga khamri lagu helin laakiin xisaabta halka aan ugu tagay markaan weydiiyey waxay ii geeyeen meel khamriga lagu gado waxaanan dib u bilaabay cabiddii ilaahu ii gargaar wax kastoo dhacaba halkan kuma cabi karo haa waa run waan joojiyey halkan khamro waa laga helaa laakiin ma cabo marmar dhifa mooyaane waxaan joogaa maka haa waan soo cimraystay waxaan ku tali jiraa sannadka dambe inaan soo xajiyo ka waran bol waa wax wanaagsan soo ma haa dhegayso waad og tahay markaan dugsiga dhiganaynay xisadaha diinta wax badan kuma aynan baran waxaan ku barannay uun ducooyinka af carabiga ah soo ma xasuusatid laakiin hadda wax kasta wuu isbedelay zahra hadda wixii laga bilaabo waxaan noqonayaa muumin waxaan noqonayaa aabbe fiican iyo nin fiican zahra ma rabo inaan mar dambo qamri cabo zahra halo zahra waxaan u maleeyey inaad igu dimi anna waa idin xiisay dhegayso wakhtigaa iga dhammaanayee carruurta kulli ii dhunko lacagta joogta idinku soo diray haye sana kadib koox xisaabteeda ah ayaan go'aansanay inaan xajka isku raacno baabuur kasta waxaa raacay 4 qof baabuurkayga qofna ilama soo raacin sababtoo ah aniga ma aan haysan leysinka darawalnimada mana ahayn darawal fiican qoraxdhicii ayaan gaadhnay maka waxaana galay kacbada oo markaan ku soo wareegay kacbada waxaan tukannay salaaddii cishaha habeenkaasu wuxuu ahaa kii ugu horreeyey ee aan weligay tukado salaadda cishaha maanta waan daalay waxaan rajaynayaa inaan caawa si fiican u nasto ma rumaysan karo inaan caawa halkan joogo cimrigayga oo idil waxaan ku hamiyi jiray inaan halkan imaado waa cajiib taasi waxay ka dhigan tahay in ducadaadii laga aqbalay Cali. miyaynan ahayn mid aan kuu qirto qirto ah waxaan ogahay sida dadkeena badan yihiin inaan diinta lagugu soo barbaarin waan la tacjibay inaan halkan kugu arko runtii waan qaadan waayey waa runta dhibaatooyin baa ii haystay laakiin hadda isbeddel baan samaynayaa wixii hadda ka dambeeya dhibaatadeeda waa xallinayaa waxaan rabaa inaan noqdo nin muslin ah oo diintiisa ku deggan iyo weliba xaaji dhab ah waxaan rabaa inaan qamriga joojiyo oo aan reerkayga kula noolaado nabad waan ku faraxsanahay inaad halkan joogto ilaahay ha kaa aqbalo ducadaada oo idil insha allah mahadsanid waa mahadsantahay saaxiibayaal waa wakhti dambe waa inaan seexanno ilaahay hurdo macaan haadin siiyo hurdo wanaagsan cali ma dibaddaas seexan gudaha ma soo gelisid miyaa tendhada gudaheeda waa kulaal waxaan doorbidayaa bannaanka ilaahay hurdo fiican ha idin siiyo waad mahadsantahay asalaamu calaykum
allahayow sideen kula xidhiiraa ma garanayo anigu laakiin waan ogahay inaad jirto waxaan kuu baryayaa si kalgacal ah waxaan rabaa inaad isu kay muujiso waxaan rabaa inaad iga badbaadiso cabidda qamriga waxaan kaa rabaa inaad i badbaadiso waxaad tahay kayga waan ku garanayaa waxaad tahay ciise adiga waan ku kaxaysanayaa yah haddaan ku raaco say noqonayaan xaaskii carruurta waad ka tegaysaa halkan waxaad tahay kayga markaan rayadii ka toosay farxad baan la dhiman gaaray aniga oo dhan waa la isaaqay waxaan ahaa sidii anigoo duulaya waxaan taabta rooggii iga hooseeyey si aan u kala hobsado dhul iyo cir meesha aan joogo waxaan gartay inaan dhulka joogo waxaan rabay riyadii inaan haddana arko laakiin waan gami waayey riyadii mar kale waan arki waayey iroor waxaan arkay ciise cali maxaad ka hadlaysaa waxaan riyo ku arkay ciise wuu ii yimid toos dhaqso kaxe cali maxaad sheegaysaa ma soo jeedaa haa waad mahadsantahay cali ma maqlaysay maxay codka ciise cali maxay waxaad ka hadlaysid codka ciise wax badan baad caawa cuntay sidaa daraaddeed baad bal la maya waxay ahayd riyo qurux badan runtii riyo qurux badan maxaad u malayn haddaan gam'o waan arki soo ma waa ra'yi fiican ku noqo hurdada berri waxay noqon doontaa maalin weyn cali waxaad tahay kayga ma sii wadaysid xajkan ka tag meeshan waxaan isdabajoog u maqlayay cod leh tag oo codkaasuna wuu i qasayey runtii waan baqayey sababtoo ah ma aanan garanayn codku meesha uu ka imaanayay waan gami waayey waxaana aaday baabuurkayga oon dhex galay cali maxaad samaynaysaa ya waan tagay maxaa dhacay xalay oo idinma halkan baad joogtay
xalay sariirtan tegay laakiin waan gami waayey waxaan maqlay cod cod yaa allah cod maxay ah ciise codkiisa ciise codkiisa dabcan xalay cali hurdada ayaa ka xumaatay hase yeeshee halkan yaynan kaga hadlin miinada aynu aadno waa hagaag waa idin dabagelayaa ma sii wadaysid xajkan waxaad tahay kayga hero idama raacaya aniga daba maxaad leedahay caliyow codka wuxuu ku adkaysanayaa inaan ka tago meeshan waana yeelayaa sida cali tan iyo 10 sannadood waxaan fuulay baabuurkaygii oo aan abbaray dhanka agba magaaladii aan ka shaqaynayey markaan halkaas gaadhay jidhkaan maydhay markaan maydhay waxaan arkay timihii shafkayga oo badh caddaaday waxaan u maleeyey inay caddaayeen dhidid ama sigo waxaan isku dayay inaan tawaal ku nadiifiyo laakiin si dhab ah ayay u caddaadeen markaasoo aniga cod iga dhex yidhi waxaan ku tusi doonaa waxyaabo kan ka weyn daqiiqaddii waxaa i galay cabsi weyn daqiiqadda waxaa igu habsaday cabsi weyn waxay ahayd cabsida nooca farxaddu heliso waxaa qalbigayga galay in ilaahay ila jiro oo ii gargaarayo waxaan dareemay in la iga samata bixinayo dhammaan caadooyinka xunxun iyo dhibaatada oo idil gaar ahaan khamriga wakhtigaas waxaa qalbigayga galay nabad iyo dareen ilaah ka cabsi waana jilba joogsaday laakiin si aan u dukado ma aanan aqoon wax aanan idhaahdo ma aanan garanayn waxaana idhi haye rabbiyow hadda laga bilaabo wax kasta ood rabto waan samaynayaa waxaan haddana habeenkaas maqlay cod igu leh waa inaad gurigaagii si dhaqso ah ugu noqoto anigoon walaacin waxaan xidhxidhay alaabtaydii waxaana u amabaxay gurigaygii waxaa gurigayga isugu yimid dariskaygii oo idil wakhtigaas aad baan u faraxsanaa inkastoo ay ogaayeen inaan xaaskayga garaaco oo carruurtayda u darnahay haddana dariskayga weli way i jeclaayeen markaas cod baan iga dhex yidhi cagahaaga ku istaag dhegaysta waxbaan idin sheegaya anigoo joogo sacuudi carabiya waxaan riyo ku arkay ciise oo ciise wuu i taabtay waxaan rabaa dhammaantiin inaad ogaataan inaan hadda raacay ciise waxaan noqday masiixi
dhaqsada ciyaal waa waqtigii jiifka kaca kaca dareera. Zahra, runtii waxaan noqday masiixi. say ku dhacday see qof masiixi ugu noqon karaa Sacuudi Carabiya? Waxaan halkaa ku arkay riyo. Ciisaan ku arkay riyo oo itaabtay. qalbigaygu beddelay oo isiyay farxadaan malayn karin. wuxuuna ii sheegay inaan kiisa ahay oo anna waan jeclaaday, laakiin ma garanayo waxaan hadda sameeyo. maxaan samayn doonaa? maxaa jira Cali? waa maxay dhibku? Zahra, aad baan ku jeclahay. weligay waan ku jeclaa. mar dambe kuu gacan qaadi maayo. rabbigaa ii dembi dhaafay. adiguna sidoo kale soo isaamixi maysid. waan ku saamaxay Cali. maxaad la ooyeysaa? waa maxay dhibku? Zahra, hadda anigu waxaan ahay masiixi, laakiin adiga ma tihid. maxaan samaynaynaa? maxaan samaynaynaa? maxaan samaynaynaa? waa hagaag Cali. haddaad masiixi noqotay anna waan kula noqoni. habeenka gurigannaga daruur nabadeed baa haraysay, hase yeeshee aniga iyo xaaskayga Sahra midkaana ma aqoon xataa hal qof oo masiixi ah. wax aan samayno ma aanan garanayn, laakiin waxay ahayd inaan shaqeeyo. waxaana go'aansanay inaan ku noqdo shaqadeydii hore ee sibiraynta ahayd. warya lacagta mashaakaad ku qaadataa mise shaqo? waa sax kaabo, waan hadlay, laakiin waxaan ka hadlay ciise. waxaan saaxiibadeeda u sharaxay in ciise uu taabtay oo nolosheeda beddelay. haddaa rabtid adigana waan kuu sharaxi karaa. waxaas waqti uma hayno aniga adiguba. haddaad shaqo rabto shaqayso, haddii kale waa lagu ceyrin. waayahay. hawlweyn Caliyow, waan ku naqaanaa inaad nin wanaagsan tahay. aakhir shaqadii waa la iga ceydhiyey. waxaan helay shaqo kale, haddana waa la iga ceydhiyey. waxaan helay shaqooyin kale, laakiin waan iska hadleeyey. damaca qalbigayga ee ahaa inaan dadka kale u sheego waxa uu ciise masiixi ii sameeyey iyo inaan gaarsiiyo fariintiisa yaa ka xoog badnaatay doonisteydii shaqooyinka. waxaan go'aansaday inaan Istanbul ka shaqaysto. 2 sana ka soo wareegtay markaan ciise la kulmay. muddadaas lama aanan kulmin qof masiixi ah, mana aanan akhriyin axdiga cusub. waxaan Istanbul si fudud uga helay shaqo saacado rasmi ah. waxaan reerkayga ugu direeyey lacag si joogto ah. markaan xaaskayga taleefon kula hadlo way ooyi jirtay, iyadoo ii sheegaysa sida iyada iyo carruurta ay iigu xiiseen. taasina waxay igu noqotay culays igu kalifay inaan dib u bilaabo khamrigii, inkastoo aanan u cabbayn sidii hore. runtii ma aanan garanayn waxaan sameeyo. cod gudahayga ah baa ii sheegay inaan ku laabto Marash. markaa waxaan xasuustay siduu ciise iiga taabtay wejiga
oo waxaan ogaa inuu i caawinayo. Waxaan ku laabtay Marash. Marash waxaa shaqo i siiyey in xirfaddeeda qiimaynayay. Inkastoo uusan iimaankayga qiimaynayn, aad baan u farxay. waa nabad Zahra. waa nabad. aaway ciyaalkii dibadda ay ku ciyaarayaan. miyaan soo eegaa? maya hadda looma baahna. waa hagaag. marka hore cuntadu ha bislaato. يوحنا cutubka 14 aayadda 6 ilaa 14 Zahra, ciise wuxuu Zahra, dhaqso kaale. anigu waxaan ahay jidka iyo Zahra, dhaqso kaale. nina aabaha uma Hee. yimaado ciise waa kan. cali maxaa kugu waa dhacay? kana raadiyaa ku dhex jira. ciise maxaa raadiyaha dhex geliyey? garanaysaan waadna aragteen filibos baa ku yidhi sayidow aabbahana tus waana nagu filan yahay markaasaa ciise wuxuu ku yidhi Magaca barnaamijka raadiyo wuxuu ahaa Codka Nabadda. Markaan maqlay, waxaan isla markiiba qaatay qalin iyo warqad si aan u qorto ciwaanka raadiyaha oo aan ugu codsado kitaabka Axdiga Cusub. 10 maalmood gudahood waxay ii soo direen kitaabkii. Waan ku farxay inaan helo kitaabka. Waxaan akhriyey Axdiga Cusub oo idil anigoo seexan. Noloshaydiina way isbeddeshay. Runtii dadka waxay arkayeen isbeddelka ku dhacay noloshayda. hadda dadka waxaan ku soo dhoweeyaa gurigayga. Waxaan qof kasta weydiiyaa ma kaa dhabbaa inaad rabto jannada. hadday kaa tahay gurigayga imow. mahadsanid saara. cali ma ku qalqaalin karaa ninkayga inuu aqriyo axdiga cusub? afeed looma baahnaa in qofna la qalqaaliyo. rabbigu isagaa jacaylkiisa nagu kasbado. waan hubaa cali inuu ninkaaga la hadlin haddiiba uusan la hadlin. runtii cali wuxuu noqday nin qaaya leh. waa waxaan la malayn karin. waxaa i soo maray carruurnimo aad u dhibaato badan. waxaan dareemi jiray inaysan reerkeennu i rabin oo i jeclayn. laakiin waayadii aan adhiga raaci jiray waxaan dareensanaa inuu ilaahay jiro, inkastoo aanan aqoon u lahayn. oo aan u sharxi jiray dhibaatadayda oo idil, oo isna wuu i dareemi jiray dhibkii i haysta. waxaan dareemi jiray inuu i qalbiqaboojinayo, oo inaan garto jiritaankiisa waxay isiin jirtay xasillooni. waxaan dhibaatadayda kala hadli jiray saacado. noloshayda waxaa beddeshay riyo, sababtoo ah waxaan raadinayay badbaado, oo waxaan badbaado ka helay sayidka ciise masiixi. haddaba waxaan adigan daalan ee halgamaya ku odhan lahaa, raadi ilaaha runta ah oo dhibaatadaada oo dhan isaga u dhiib. waa hagaag. weligaa habeen meel cidlaa ma istaagtay oo cirka intaad eegtay ma la qushuucday quruxda xidigaha, ama sida cali markuu yaraa ma dhex joogtay buuro qurux badan, doog iyo ubax? jawaabta ay markaa garashadaadu ku siinaysaa waa inaad innagoo mahadnaqayna aan qiranno jiritaanka ilaah iyo quruxda uunkiisa. laakiin garan mayno erayaan u adeegsanno, oo wax kastoo aynu idhaahnaa xataa ma hubno inuu ina maqlayo. waxaa la yidhi qof kasta qalbigiisa waxaa jira meel wax ka maqan yihiin. maqnaanta waxa ruuxiga ah, meeshaas oo uu bixin karo oo keliya ilaah. cali baktash isagoo adhijir meel cidla ah jooga wuxuu la hadlay ilaah uusan aqoon u lahayn, laakiin ma uu dareemaynin inuu jiro. meeshii bannaanayd ee qalbigiisa waxaa cali ku abuurtay inuu u hiloobo barashada ilaah, inuu xidhiidh qoto dheer la yeesho isaga. adigana saaxiibkayga qaaliga ahow,
ma jirtaa meel ka bannaan qalbigaaga oo aad moodo inuusan jirin wax buuxin karaa? ilaahay waa kaaga dhow yahay inta aad u moodayso, wuxuuna garaacayaa albaabka qalbigaaga isagoo ku leh waan ku jeclahay, ii fasax inaan qalbigaaga galo ayuu ku leeyahay. aan ku imaado oo aan hoygayga ka dhigto oo aan ka buuxiyo meesha ruuxdu ka maqan yahay wehelnimadayda, qalbi qaboojintayda iyo farxaddayda ayuu ku leeyahay rabbigu. maqal saaxiibkayga qaaliga ahow, runtii ilaahay wuu ku jecel yahay. aamin ama ha aaminin, wuxuu kaa sugayaa inaad ka barido xidhiidh gaar ah oo aad la yeelato isaga. bal wax yar ka fakar cali markuu yaraa neef adhi oo ka lumay. wuu ka tegi lahaa adhigiisa si uu u raadiyo neefka lumay. miyaanay ahayn? marmar ma dareentaa inaad lusan tahay? weligaa ma ku soo maray wakhti ay noloshaadu kugu muuqatay midaan macno iyo ujeeddo toona lahayn? ka hadal waxa qalbigaagu u ooyayo. ilaahay maqashii codkaaga, qalbigaaga u fur isaga. tukashada macnaheedu waa ilaahay inaad si toos ah ula hadasho adigu oo isaga la yeelato xidhiidh shakhsi ah. haddii aad ku lumi lahayd dhul ban ah ama buuro dhexdooda ama meel gebi ahaanba cidlo ah, miyaadan cid ku gargaarta u qayshateen? kitaabka quduusku wuxuu ina barayaa inaan ilaahay ugu yeedhno aabbe oo aan la yeelanno xidhiidh sida kan aabbe iyo wiilkiisa ama aabbe iyo gabadhiisa. cali wuxuu rumaysto noqday markuu rabbigu riyo ugu yimid isaga. quruxda riyada awadeed wuxuu rabay inuu hurdada ku noqdo si uu mar kale riyadii u arko. waxaa suurtooda inuu ilaahay adigana ku tuso riyo saaxiibkayo, laakiin waxaan rabaa inaad ogaato inaysan shardi ahayn inaad riyo aragto si aad u rumaysato ciise masiix inuu yahay rabbigaaga iyo badbaadiyahaaga oo aad isaga ula yeelato xidhiidh shakhsi ah. hase yeeshee waa inaad tukato, waa inaad u oggolaato inuu qalbigaaga galo. ha cabsanin, ciise wuxuu yidhi waxaanahay adhjirhka wanaagsan. wuu ku jecel yahay ilaa heeruu naftiisa adiga kuu bixiyey. ilaahay wuxuu wiilkiisa u soo diray inuu adiga kuu gargaaro. wuxuu diyaar u yahay inuu sidaada ku aqbalo. haddaba diyaar ma u tahay inaad isaga aqbasho? ilaahay wuxuu rabaa inuu xagga ciise masiix dembiyadaada oo dhan kaaga cafiyo. waxa keliya oo aad samayn waa inaad qalbigaaga u furto ciise. haddaad rabto inaad sidaa samayso, erayadan tukashada ah iga daba dheh. ilaaha awoodda badano, waxaan kaa baryayaa inaad tukashadayda aqbasho. waan oggolahay inaan dembiilahay oo waan rumaysanahay inaad u soo dirtay ciise masiix inuu i badbaadiyo. waan aqbalay ciise inuu yahay rabbigayga iyo badbaadiyahayga. iga cafi dembiyadayda oo i daahiri. isii xoog si aan jidkaaga ugu socdo. waxaanu kuu weydiisanayaa magaca ciise masiix. aamiin.